السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan la wadaagi doonaa calaamadaha lagu garan karo in qofka uu sii dhimanayo. Haddaba markaan ku hadlayno dhimashada, waa inay kugu soo dhacdaa in Allah kaliya uu qof dilo uuna nooleeyo. Midda kale, ma ahan calaamadahan soo sheegayno inaad yihiin kuwo aad iyo aad boqolkiiba boqol la hubo. Sababtoo ah waxaa dhici karta in qof aad iyo aad u dhiman rabo inuu dib u soo laabto, sababtoo ah Ilaahay amarkiisa inay ku dhacdo. waxaana laga yaabaa qof asigoo fiican inuu hal mar dhinto, sababtana ay tahay Ilaahay amarkiisa. Marka waxaan idin soo gudbi doonaa waxyaabo lagu garan karo oo cilmiyeysan, oo ah in qofka lagu ogaan karo inuu kusii dhawaanayo ama uu kusii dhawaanayo inuu dhinto. Haddaba waxaan soo gudbi doonaa ilaa 6 qodob. Lambarka 1, appetite-ka ayaa yaraan doona. Qofka markuu kusii dhawaanayo dhimashada, waxaa dhib ku noqon doonta ama ku adkaan doonta ama uu noqon doonaa qof aad iyo aad u jilicsan oo tabar daran, oo ruux ahaantii noqday mid aad iyo aad u tabar yar. Sidoo kale qofku wuxuu joojin doonaa cuntooyinkii uu aadka u jeclaay uu cuni jiray. Sidaa daraadeed qofku waxaa ku imaan doono in cuntooyinkii uu jeclaay inuu iska dhaafo. Lambarka 2, hurdo aad u badan. Maalmo ka hor intuusan qofka dhimanin, waxaa lagu arki doonaa hurdo ka badan inta uu hurdi jiray. Sababtuna waxay tahay marba marka ka dambeyso waa uu sii badanayaa hurdadiisa. Sababta la xiriirinayana waxay tahay in qofka uu dareemayo ama jirkiisa uu sii laciifayo. Sidaa daraadeed ay imaanayso in qofka uu dareemo daal iyo hurdo fara badan. Lambarka 3, murqaha oo noqda daciif. Murquhu waxay noqon doonaan kuwo aad u daciif ah, waxaana ku adkaan doonta qofka marka uu xitaa rabo inuu wax soo qabsado uu istaago. Uu rabo inuu wax soo qabsado ayaa aad u adkaan doonta. Sidoo kale xataa waxaa ku adkaan doonta in qofka uu sameeyo isrogrog ayaa aad u adkaan doonta. Lambarka 4, waxaa isbedelaya neefsashada qofka. Markii laga hadlayo qofka markuu fiican yahay, wuxuu neefsan doonaa neef aanan la dareemeyn. Laakiin qofka markuu kusii dhawaanayo dhimashada ama calaamadaheeda ka mid ah lagu arkayo, waxaa ka mid ah in qofka neeftiisu ay tahay mid ruux ahaantii la maqli karo oona ka duwan kan caafimaadka qabo. Lambarka 5, waxaa hoos u dhici doona heerkulka qofka. Wareegga dhiigga ee gacmaha iyo lugaha ayaa yaraan doona, taasoo keenaysa maqaarka iyo addimadayaasha in ay noqdaan qabow markii la taabto. Sidoo kale waxaa isbedeli doona maqaarka qofka oo noqon doono mid caddaan ah. Haddaba waxaan meesha ka maqnayn in qofka uu dareemayo xanuun marba marka kasii dambeyso oo ay geerida uu kusii dhawaanayo. Haddaba calaamada ugu muhiimsan ee lagu garto in qofka uu dhintay waxaa ka mid ah waa qofka oo istaaga wadnihiisa. Haddii qofka wadnihiisa ay joogsadaan, ay gabaan shaqadii ay hayeen, qofkaasi waa uu dhintay. Sababtoo ah wadnaha waa meesha kaliya ee laga waraabiyo jirkooda. Haddii source-gii ama meeshii wax ka imaanayeen haddii la xiro, waxaa imaanayso inay waxyaabihii ay sugayeen in aysan helin. Sidaa daraadeed wadnihii waa meesha wax laga keeno. Haddii meesha wax laga keeno ay dhimato, dadka kalena ma noolaanayaan. Sidaa daraadeed wadnuhu waa asaaska. Haddii ay wuxuuna geeyaa jirka waxyaabay u baahan yihiin. Haddii uu dhintana waa jirka idil inay dhintaan, sababtoo ah wax ay heli doonaan ma lahan. Haddaba waa ku mahadsantahay daawashada. Fadlan ha ilaawin inaad subscribe-ka saarato si aad noola socoto casharradeena.